kulamo saacado badan qaatay waxaa magaalada Muqdisho maalmihii la soo dhaafay ku yeelanayay madaxweynayaasha maamulada Puntland, Galmudug, Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. kulamadaas oo ay uga wada hadlayeen arrimo la xiriira khilaafka doorashada. madaxweynayaasha Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa waxa ay dadaal ku bixinayeen in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay ku qanciyaan ka qaybgalka kulanka u dhaxeeya madaxdaasi iyo sidoo kale madaxweynaha madaxweynaadkiisu uu dhamaaday. kaasoo maalmihii la soo dhaafay ka socday teendho ku taala xerada ciidamada cirka ee Afisyooni. hasaatee saacadii la soo dhaafay cadays ka yimid beesha caalamka iyo sidoo kale isu soo dhawaansho ay sameeyeen dhinacyada Puntland iyo Jubbaland iyo madaxda Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. waxaa warar soo baxaya ay sheegayaan in is-afgarad hordhac laga gaaray. wararka kulanka laga helayo waxa ay tilmaamayaan in madaxweynayaasha saddexda dowlad goboleed ay ku qanciyeen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland inay ka qayb galaan kulanka guud ee maalinta Talaadada ah loo balansan yahay in lagaga hadlo arrimaha khilaafka uu ka taagan yahay ee doorashada Soomaaliya. warar kale waxa ay sheegayaan in madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay dalbadeen in la qanciyo xubnaha midowga musharaxiinta madaxweynaha iyo gudoomiyaha aqalka sare, taasoo keentay in kulanka madaxda dowlad goboleedyada ay ku biiraan midowga musharaxiinta. shalay oo axad ah waa maanta oo axad ayaa la filayaa in madaxda dowlad goboleedyada ay la kulmaan gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi si loo qanciyo. waxaana sidoo kale madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay la kulmi doonaan ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. doorashada Soomaaliya ayaa weli heshiis rasmi ah laga gaarin, waxaana beesha caalamka ay wadaan dadaallo ku aadan sidii la isugu keeni lahaa saamileyda siyaasadda dalka oo aad ugu kala fogaaday arrimaha doorashada Soomaaliya. kulamadii ugu dambeeyay ee saacadihii la soo dhaafay oo ay ku biireen xubno ka tirsan golaha midowga musharaxiinta waxaa la sheegay in dhinacyadu ay isku fahmeen halka caqabaduhu ay ka taagan yihiin iyo hanaanka loo maareyn karo caqabadahaasi si looga gudbo. warbixin shalay ay sheegeen midowga musharaxiinta inay u gudbiyeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee Muqdisho ku shirsan waxa ay tilmaameen in ay tahay warbixintooda aragtida la xiriirta xal u helidda caqabadaha hareeyay doorashada ee fadhiidka ka dhigay, iyada oo maanta la filayo in gudoomiyaha aqalka sare haddii ay la kulmaan isaguna ay warbixin la xiriirta sida xalka uu arkay ka dhageysan doonaan, kadibna la soo saari doono war la xiriira waxyaabaha ay isku afgarteen iyo halka laga ambaqaadi doono meesha hadda la taagan yahay. maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa shaaciyay liiska 15 mudane kuwaas oo laga joojiyay qaybgalka kulamada soo socda ee baarlamaanka muddada xilheentooda uu dhamaaday. qoraal ka soo baxay gudoomiyaha oo la ogeysiiyay madaxa habdhowrka golaha shacabka, xogeyaha guud ee golaha, ciidanka amniga golaha taliyahooda ayaa waxaa lagu sheegay in 5 kulan aysan imaan karin 15 mudane oo ka tirsan golaha shacabka. xildhibaanadan ayaa sababaha lagu joojiyay qaybgalka 5 kulan ee golaha shacabka ayaa waxaa lagu sheegay inay is hor istaag ku sameeyeen furitaanka kulankii shalay ee golaha shacabka kaas oo buuq ka dhashay. anigoo tixraacaya warqadda ka soo baxday xafiiska habdhowraha golaha ee ku taariikhaysan 27 bisha Maaj, waxaan si waafaqsan warbixinta habdhowraha xubnaha magacyadooda ku xusan yahay ee horjoogsiga ku sameeyay fadhiga golaha 27 Maars oo shalay ahayd la joojiyay 5 kulan fadhi laga bilaabo taariikhda warqadan iyo ku xadgudbay qodobka 16aad, qodobka 18aad, farqada AB, qodobka 19aad, farqada 1 BD iyo qodobka 28aad, farqada 5aad iyo qodobka 4aad ee xorosaadka golaha. xubnaha kale ee soo xaadiray fadhiga golaha si ku talagal ah u saxiixi waayay maxdarka si hor istaag u sameeyaan guntanka. waxaa la farayaa habdhowraha golaha in magacyadooda u soo gudbiyo gudoomiyaha si waafaqsan qodobka 23aad farqadiisa 16aad ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka. xildhibaanada fadhiyada soo socda ee golaha shacabka oo gudoonka ka joojiyay inay qayb galaan waxaa magacyadu ay kala yihiin xildhibaan Cilmi Maxamed Nuur, xildhibaan Xuseen Qaasi Yuusuf Iidow, xildhibaan Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed, xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene, xildhibaan Maxamed Cali Cumar, xildhibaan Faysal Cabdulle Guleed, xildhibaan Cabdullaahi Yuusuf Xasan Alinki, xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig, xildhibaan Jibriil Cabdirashiid Xaashi وحاجي حلبان محمد أحمد أبتدون حلبان صديق حرسي ورفاء حلبان حسي عبد إسماعيل أو لو يقان حسن يري
xildhibaan Sadiiq Xirsi Warfaa iyo xildhibaan Cabdirashiid Xidig ayaa labadaba waxa ay sheegeen in go'aanka uu qaatay gudoomiyaha golaha shacabka uu yahay mid sharci darro ah isla markaana aysan amarkiisa u hoggaansami doonin inay tagi doonaan kulamada soo socda ee golaha shacabka. waxaan dhihi karaa runtii waxa weeye waa nasiib darro dalka in maanta xilligan xildhibaan oo haysta mataqaanaa awoodihii oo xildhibaanku haysan lahaa taasoo ka mid ah xasaanadda oo ah qodobka 7aad mataqaanaa Jamhuuriyadda Soomaaliyeed oo siinaysa xildhibaanada inay dhibaato kaga imaan karin inay fikirkooda iyo codkooda si xorriyad ugu cabiraan in maanta gudoonku uu mataqaanaa gudoomiyuhu ku takrifalo awoodiisa waa nasiib darro ayaan dhihi lahaa. sida caadiga waxaan hor taaganahay annaga mashruuc ka dhaxeeya maxamed mursal gudoomiyihii hore Mahad Cawad gudoomiye ku-xigeenka labaad iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Farmaajo oo ah inay waqti kororsadaan annaga waqti kordhintaas ayaan hor taaganahay waana hor taagnaan doonaa qofku aadi kari iyo qof samayn karaan midnaba way arkaan dhammaantood xildhibaanadu laakiin waa jiraan xildhibaano ka baqanaya in la soo dooran waayo hadday deegaanadii aadaan sidaas darteedna extensionka raba oo ay doonayaan in kuraastoodii loo cusboonaysiiyo wax damacana aanay ka haynin ama aan kalsooni ku qabin inay reerahoodii iyo deegaanadoodii dib ugu noqdaan oo la soo sidaad ogtahay aqalkii sare ee baarlamaanku wuu xidhan yahay oo mushkilad ka dhex abuurantay ayuu u xidhan yahay dabcan kana waa xidhmaya anagu dagaalami mayno laakiin nidaamka sharcigan ku taaganahay dhib ma laha in laba baarlamaan ay shiraan problema anaguna shirkeena qabsanaynaa gudoon baan dooranaynaa shaqa qabanaynaa. kulankii shalay ee golaha shacabka ayaa booq u dhamaaday kadib markii xildhibaanada kuwa mucaaradka ah ee badi ay diiday inay saxiixaan buugga xaadirinta kulamada golaha shacabka iyagoo sheegay in markaasi kulanka uusan ahayn ajandihiisa mid looga hadlayo cudurka safmareenka ah ee COVID-19 hayeeshee uu jiro ajando kale oo ka hoos qarsan kaas oo ay sheegeen yihiin muddo kororsi uu doonayo in gudoonka golaha shacabka uu sameeyo madaxda muddo xileedkooda uu dhamaaday iyo hay'adaha kala duwan ee dastuuriga ah ee dowladda Soomaaliya. kulankani oo ahaa mid daba socday kulamo maalmihii ugu dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho caasimadda dalka ayaa waxaa lagaga hadlayay arrimo la xiriira sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafyada doorashooyinka ka taagan. madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle ayaana la kulmay qaar ka mid ah madaxda midowga musharaxiinta iyagoo ka dhageystay warbixino la xiriira sida ay iyagu dhankooda u danaynayaan in la soo afjaro khilaafaadka jira si wadanka loo geliyo doorasho. xubnaha midowga musharaxiinta ayaa madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle u sheegay in midowga musharaxiintu aysan doonaynin qallaase siyaasadeed mid amni in wadanku galo balse ay doonayaan oo kaliya in doorasho xasiloon xor xalaal wadanka ka qabsoonto. madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa dhankooda u sheegay in ay ku dadaali doonaan arrintaasi iyagoo u kala dabqaadi doona cid walba isku haysata arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu madaxda midowga musharaxiintu ka codsaday in aysan sameynin wax qalqal ah isla markaana sina iyagu ay ka warsugaan maalmaha soo aadan ayna ka shaqeyn doonaan xalinta khilaafyada jira si dalka loo geliyo doorasho. kulanka waqti badan qaatay ayaa ugu dambeyntii waxa ay madaxdii ka socotay midowga musharaxiintu ay u gudbiyeen labadani madaxweyne warbixin la xiriirta sida ay muhiim u tahay in madaxda dowladda federaalku ay ka tanaasulaan qodobo dhowr ah oo ay sheegeen inay hortaagan yihiin in heshiis la gaaro. waxa ayna ballan qaadeen hoggaanka maamulada Hirshabeelle iyo Galmudug in ay horgeyn doonaan kulamada ugu soo horeeya ee ay yeelan doonaan. si kastaba wadanka ayaa xilligaani waxa uu ka jiraa qalqal siyaasadeed oo la xiriira in aanan wali jaha loo bixinin doorashooyinka wadanka ka qabsoomi lahaa oo dhowr bilood ay raacday xilligii doorashada Soomaaliya ee la joogay.